waa tahay kusoo dhawo idaacadda daljir saakan ugu soo booqatay adigoo bal jagada ama teatalkaad ku hadlaysid iyo magacaaga saddexan ugu bilaabaya iyo saaka aad noo soo booqatay bal maxay tahay ujeedada aad noo soo booqatay bismillahi raxmaan raxiim bismillahi raxmaan raxiim magacaygoo saddexan cali cilmi warsame weeye cali maraykan weeye teatalkayguna teatalo badan baan dee puntland iyo atumaba kasoo qabtay laakiin haddeer waxaa u dambeysay un teatalkii aan iska casilay cali khaliif la taliyihiisii nin la garanayaanayo dee badankii leeyahay raggii aasaasayaashii puntland wixii ka noolaa un baan ku jiraa haddeerna waxaan halkan u imi saddex qodob faysal cali waraabaa yidhi faysal cali waraabe wuxuu yidhi laga dayn maayo gobolka sool laynta dilka laga dayn maayo ilaa ama lacagta qaataan ama ay cashuurta bixiyaan dilka laga dayn maayo yidhi waxaa caddaatay waxaa laala wixii laascaanood lagu dilay haddii aan tira koobnay ilaa intay nimankaasi ay meesha soo galeen 275 qof weeye faysal wuxuu caddeeyey waxaa leeyihi nin hadal badan ee hooyaday wasayna waa laga maqlaa faysal wuxuu caddeeyey in dadkaa ay laayeen iyagu haddeerna la layn doono haddayna cashuurta bixin lacagta somalilandna ayan qaadan waa nasiibkaa weeye waan ka gudbayaa taa qodobka labaad wasiirka maaliyadda esnanto wuxuu yidhi dadaan diin haysan baan u tegey dadaan axdi lahayn baan u tegey dadaan ahayn haddii badankeed leeyahay wax bilow aadana oo lagu soo dhaweeyo ayn jirin baan u tegey meesha laga qabsan doonaa ama looga soo dhici doonaana waa gobolka sool weeye iyo somaliland wuxuu caddeeyey ninkaasi inay dad diin leeyihiin diintuna dee somaliland inayan ahayn ee diinta muslimkaa tahay aynan ahayn somaliland dadkaasi buu caddeeyey isaguna taasina waa qodobka saddexaad waxaan leeyahay dagaal baa socda dagaal baa jira in badan baynu puntland canaananaynay oo maagaynay maanta guntigay dhiisha iskaga dhigtay reer sool ama khaatuma ha ahaado ama sool iyo sanag iyo cayna ha ahaadee inuu diyaar garoobo rag iyo dumar oo dagaalka ay ka qayb galaan oo kuwa la joogaa ayan la joogine ay reerta kaga qabtaan oo haddii badan badan baynu puntland maagaynay ama reerahan xigaalkeena aynu maagaynay maantaynu jaanis haysanay jaaniska inaan ka faa'iidaysano reeryada gumaysiga inaan iska tuuro waxa weeye waad maqlaysaa in la leeyahay dilka laydinka dayn maayo aad baan u salaamayaa ummadda reer puntland iyo reer khaatumaba waa salaamayaa labaduba aniga waxay la tahay khaatumo waa puntlandna waa khaatumo say anagay la tahay wey haddii dalka la xoreeyana waa la isu iman doonaa waa la wada hadli doonaa waana la heshiin doonaa waxa weeye hawiyaba meel walba qobad yar buu ka samaysto maamul goboleeda inagu aad iyo aad ragga ka horjeeday inaan khaatimo la samayn aniga waxay la tahay inay dayac weyn tahay madaxweyne cabdiweli waxaan u sheegaya waa salaamaya bacda salaan waxaan leeyahay ku dhiiro hawsha labada lugoodba geli raiska geli labada lugoodba waa lug baa hadda kula jirtaa labadaba geli aad baan idin salaamayaa madaxweyne ku-xigeenkana waan salaamayaa wasiirada xildhibaanada waxa weeye reer puntland oo dhan waan salaamayaa anigu dee puntland maya haddeer laakiin waan noqon doonaa haddii aan laydmo haddii dee aan arko sababa lagu noqdo waan noqon doonaa waan ducaynayaa ilaahay waa inaga gardaranyina guusha hayna siiyo waxa weeye wuuna ina siinayaa waxa weeye waxaan la hadlayaa nimanka hawd degan baan la hadlayaa weliba reerka aan ahay baan la hadlayaa cali cilmi warsame nimanku way ka soo guureen hawd ha laga soo dabaguuro ha la iska celiyo nimanka oo ciidankii halkaa joogay ha la habeeyo laascaanood maanta waa meel bannaan wey ninka qabsado unbaa dere waagii annagaa le iyo annagaa degi jiray waxaas ma socoto meesha waxa weeye ha laga soo qayb galo dagaalka aad baan idin salaamayaa idaacadda daljir iyo warbaahinta iyo nimankan ka shaqeeya rag iyo dumarba waan salaamaya iyadana wata caliyow waxaa tahay nin rog cadaayo muddo soo joogay ee somaliland muddo ku dhow 10 sano bay gacanta ku haysaa laascaanood sidaad sheegtay dilal baa ka dhacay ilaa muddadaasna waxaa jira in badan ay shacabka aggaa degan dibadbaxyo sameeyeen ay somaliland kaga soo horjeedaan maxaa sidii ka dhaa maanta maadaama puntland ay u diyaar garowday inay goboladaasi xoreyso
muxuu yahay doorka u furan dadka degan goboladaas? waan u sheegay, waan u malaynayaa weliye aad baan ugu sheegay. waxaa u furan inay hareerta kaga qabtaan. ninkii horaan u sheegay, ninkii qoray haysta, ninkii gudun haysta, toorey ninkii haysta, ninkii haddii dhagax haysta, rag iyo dumar inay dagaalka ka qayb galaan baan diyaar u nahay. aad iyo aadna waxaan ugu rajo weynahay in laga guuraysanayo. waxa weeye ninku hadduu kibro, ilaahay unbaa horta kibri kara, cid kaloo kibri kartaa ma jirto. waxa weeye ilaa iyo maalintii puntland la sameeyey, controolku wuxuu yaalay gumays buu yaalay controolka puntland. lama taataan bu ahaa xadka puntland ay leedahay. ilaa iyo haddana garow uu dul yaallaa. waxa weeye hal xaba laguma ridin, hal xabo. war haddii xitaa laynagaba adkaado oo aynu dagaalano dee waxba maaha, laakiin dagaalamima mayno, way iska soo socdaan. toga garow waanu imanaynaa, magaalada yaan la bileelqaysan, magaalada ha laqun yaro. waxa muuse bixi uu ku hadlaya wax laga jirircooda wey, wax laga xumaadana wey. waxa weye habar loo waayo waa hoogtaa la yidhi. dee cabdiweli waxaanu ka rabnaa jawaabteeda inuu bixiyo. maantood rag haystaa oo dad haystaa oo haddii bidikadi wax badan oo uusan filanayna wuu heli doonaa haddii alla. waa tahay markii intaas laga yimaado, muddo dheer bay somaliland gacanta ku haysaa laascaanood. maxaa las dhihi karaa puntland iyo khaatumaba waa u weerari waayeen, waa isku dayi waayeen hadda ka hor inay somaliland ka xoreeyaan goboladaas? maxaa hortaagnaa in goboladaas la xoreeyo hadda ka hor? ilaahay amarkiisa horta jira. waxaa jira waktigii ilaahay ugu talagalay inbay horta dhacaysaa. waxaani ninkii isa soo taagay madaxweyne doonaya mid waliba wuxuu odhan jiray laascaanood baan xoreynaya oo kusoo bixi jiray. cabdiweli wuxuu yidhi faataxa laguma qaadan laascaanood, qori baa lagu qaatay, qorina waan kusoo celinaya. waxa weeye ilaahay idankii hadda unbay soo durgaa nimanku ay soo durkeen ee ay yimaadeen tukaraqa yimaadeen ee la arkay inay soo socdaan baa keentay waxa kan horta. sababana way jiraan oo ilaahay amarkiisaa jira. markaan dib ugu noqdo ilaahay amarkiisa, waxa weeye waktiga ay wax dhici lahaayeen ayuunba hadda diyaaran qiyaasaya. de waa sida wey. ma las dhihi karaa xilligii cabdiweli uu yiri faataxa laguma qabsan laascaanood, faataxana lagu furan mayo, maantay joogtaayo hadalkiisa maantu ka dhabaynaya? ma las dhihi karaa? waan malaynaya, waan ku malagelayaa inkastoo haddeerto uu lug kula jiro. madaxweyne labada lugoodba geli meesha, waan ku rajo weynaa.